maxamed cabdilaahi cumar waa mid ka mid ah siyaasiyiinta da'da yar ee ka soo jeeda gobolka Awdal waxaana uu maanta wareysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ee Kalsan TV isagoona uga warramay isla markaana ka warbixiyay xilka qaadistii dhawaan xilka lagaga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii hore xisbiga mucaaridka ee Ucde Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni isagoona sheegay inaanu iscasilin gudoomiye ku-xigeenkaasi isla markaana uu xisbiga mucaaridka ee Ucde uu casilay kalana noqday xilkii iyo xubinnimadii uu ka hayay xisbigaasi maxamed cabdilaahi cumar oo هاسي ولبا أمورة كلا كهدلاية يا وحو يدي محمد عبد الله عمر أردموجي أو كم إذا هالدور يا قيان كهنك السياسي اللي كسر شيء قبل كأودل حرمت يسبورة ما أنا ورئيس جارة كلية لأني مقالة هرجيسة إنه جهرك سدوا محمد تلفزيون على مجال كالسن تيفي وكسدوا هي صاحب كالسن تيفي أدبا نقوم هاد علينا يا سيدو أركتا قدوم يكو حجان كواد حسب معارض كيعد عبد الناصر محمد حسن بوني عندنا يروح الشعيس المركز سنة وكتجي حلكي يحب النمدي حسب قاسي يعد وسؤال وناكسن أرد واحد يقول شيء يعني كاسي يعني إسكمو عسين إسكانو كمو تجين لكن حسب قايا إيريي ورقدنا صو صاري واحد يرمو ده سيدو حلول كحسب سدد حسبه وكلا طبق هذا يو مر وطني جريو مرنا يعني كل مية جريو مر نوعد جريو أياد يرمو ده لكن حسبه سدي عديين لقونا قنعي وإن يجا ورقد صو صاري كان إيريي كدبنا لأن داد قاعد حنبع سكيب على إيريي سوينا وحيلون سعسين إن هذاك كل نقطة أرنتها إن وحي وكوهد لي وحا وكوهد لي قدوم يكحين كي كوباد هيك صوير وحي أرن هذا قلدان حسبه إسكو بيسجين سامي كقول كأوضل لكن وحي إسكو سجين أرن كلو قدوه جا يو شقدي أصيه فنو قدواي arrimaha noocaas ayay isku saageen saad hadda sheegtay ba raaligelin baad ka bixinaysay maadaama hadal ka soo yeelay haddaan ka weydiiyo su'aal hadalkii uu ku dhawaaqay isla markaasina eedayntii uu soo jeediyay xisbiga mucaaridka Ucd wuxuu ku tilmaamay xisbiga Ucd inaanu madaxtooyada marnaba ka bixin isla markaasina inuu xiriir hoosaad la leeyahay xisbiga muxaafidka ay kulmiya maadaama haldoorkii iyo waliba aqoonyahanka hanka siyaasadeed iyo Soomaaliland ka soo jeeday tahay mustaqbalkan insha Allah ragii madaxda ku tashanaya tahay bal maxaad adigu rajeeda السؤال ku cabir kartaa ama eedaynta xisbigaasi mas'uulkaasi soo jeediyay maxay tahay su'aashaasi walaal waxa weeyaan adii weydiisay hadaan ka jawaabo madaxtooyada wax maamula madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa xisbiga kulmiye talada haya Ucid wataad ogeydo gudoomiyuhu in badan wakii media marinayay inuu ka soo horjeedo nidaamka madaxtooyada loo maamulayo hadii aragtidii markii la isla eegay ay gudi dhax gashay la isku soo dhawaaday oo ajenda la isla qaatay madaxtooyada inuu galay wada hadlaan ceeb ma aanu sidaas uma malaynay madaxtooyada waxay u galaan arin hadduu arin ha u galin madaxtooyada leeyahay waa ka gardaray madaxtooyada waa la galayaa waa madaxtooyada qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa jooga waxa la leeyahay taladii dalka laga go'aaminayaa waa la tagayaa waana lagu wada hadlayaa madaxtooyada in la tagaa dambi ma aha Naasir Maxamed Xasan Buuni gudoomiyahankii hore xisbiga Ucd xilka uu baneeyay misleydi wad ku soo hirinaysaan isla markaasina booskiisa ma buuxinaysaan waa su'aal wacan horta qof un buu ahaa riyaadana way farbadayeen mutacalimiin badan bay leeyihiin anagu dhalinyarta gobolku maanu ka mid nahay iyo siyaasiyiinta iyo rag aragtidooda cabira reer Awdal xaq bay u leeyihiin cidii ay keenaan reer Awdal imka uma taalo waxa uu taalo xisbiga Ucid xisbigu cidii uu qaato ee munaasab ku ah talada iyo hogaaminta xisbiga cid loo garto golaha fulinta iyo gudoomiyaha xisbiga iyo ragga taladu ka godo xisbigu iyo arintaas u taala reer Awdal waxa iyagu maamulaan maaha saddex xisbi bay ku kala jiraan waana qof shakhsi ka mataliyay buu ahaa xubintaana anaga oo cidii loo magacaababa waa cidii kale iyo cidii loo doortaaba waa boos banaan wada aragtaa waana la buuxinaya insha Allah Samaal Cabdi Axmed Karin Kalsan TV Hargeysa